walaalayaal mudanayaal marweyn marka ugu horeysa horta waxaan mahad iyo bogaadin u celinayaa ama u soo jeedinayaa madaxweynaha Jubbaland oo iyo ku-xigeenadiisa shacabka reer Jubbaland xildhibaanada sidii quruxda badnayd oo naloo soo dhaweeyay ilaa haddana naloo ku wada hawshii ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marka ugu horeysa. marka labaad waxaan salaamayaa gudoomiyaha iskaashiga ku-xigeenkiisa iyo madaxweynayaasha kalaba. marka saddexaad wakiilka xogayaha guud mudane Michael Keating oo sagootis fiican aan jecel lahay inaan u samayno haddii ilaahay yidhaahdo. mudanayaal marweyn marka ugu horeysa waxaan jeclahay Soomaaliya anigu 60kii markii xorriyadda la qaatay uga joogay aniga in yaroo haddaan u malaynayo 5% inay saareen dadka halkan fadhiya ayaa malaha waagaas noolaynba. markii xorriyadda la qaatay si fiican ayaa ugu faraxnay annagu dhalinyaro aan ahayn wax idiin haray adduunyada oo fiicnaanahay ma jirtaan islahayn. markaan iskuullada iyo dhiganaynay oo xamar iyo carrada aanimada soo faafnay waxaan weligay arkin iyo taksiyaal iyo dawlad iyo nalal baxaya iyaan aragnay ilaa waxaan ka nimid baadiyaan ka nimid qurboo kala mudug iyo galguduud iyo meelo ka shisheeyaanu ka nimid. dawladdii sidaas ahayd markii la gaaray 68 culays baa fuulay xoogaa waxaad moodaa sidii farxaddii tirada badnayd oo aad iyo aad maaragtay ummadda u soo dhaweysay in xoogaa gabaabsay. markaas waxaa la oran jiray Soomaaliya waxaa loo bixiyay qabrigii mucaawanooyinka. annagu halkaa taagan oo sidaa dhegaysana ayaa kacaankii yimid 69kii runtii u dardargeliyey wax badanna waa la qabtay positive iyo negative labadaba ha lahaado laakiin waxyaalaha maaragtay horumarka oo markaa yimid baa aad iyo aad u badnaa inkastoo waqtigu dheeraa sida oo waara u sheegay oo kale waxa ugu muhiimsanaa waxa la qabtay oo kacaanka koobtay dadku wax kale u fasiraan af Soomaaligii la qoray ayaa wax kasta ugu muhiimsanaa iyo howlkacii tirada badnaa oo la sameeyey dekadahan aad u jeedaan oo Soomaaliya iyo airboorada waagaasaan wada dhisay. wax yar ayaa ka horreeyey kacaanka waxaan malaynayaa waxaa ka horreeyey Berbera iyo Kismaayo ka horreeyey laga bilaabo xamar iyo wixii ka dambeeyey kacaanka gudihiisa ahayd. laftooda aad uma ordin oo colaad badan baa jirtay oo labadii dhinaca laakiin waa la soo shaqeeyey. warigii dhammaantii 19kii waa tii intiina burburtay sidii ragga iga horreeyey u soo sheegeen ama uga hadleen. wixii ka dambeeyey arrinku wuxuu noqday dib u heshiisiin waxa la yidhahdaa. bal dib u heshiisiin definition ma leeda ma dhammaataa horta ma dhammaatee iska socotaa had iyo jeer. waxaan xasuustaa carta wuxuu ahaa shirkii dib u heshiisiinta 14aad buu ahaa. anigu dadkii ugu horreeyey oo carta ka shaqeeyay baan ahaa runtii wax badanna ka qabtay in shirkaas qabsoomo. haddana shirkii 14aad buu ahaa. kii ugu dambeeyey oo aan qabtay aniga oo isoo maray wuxuu ahaa kii galmudug iyo halsuna oo 8 bilood ka hor ahaa. waxaan islahaa intaas odagaagii soo maray tanba haddaad qabatay oo aad u dhib badnayd waxaa lagu oran doonaa waa mahadsanta wax igu tankii qof yidhahdoo ma hayo. dawladdii federaalka ayada guusha horteeda ugu soo hooyey inta la soo qaaday madaxtooyada lagu saxeexay oo la isla tagay dhuusamareeb oo wax walba loo xafladeeyey waxay ugu bedeleen xaaq waa inuu baxaa kelimad la yidhaahdo. waxay u noqotay halhayska madaxda federaalka waxa weeye xaaq inuu baxa waayo. warada xagee aada odag waa kii dadka soo dhaweeyey. waqti
waqti dambe u tartama uma harin intii yareyd oo maaragtay uu ku goobtay wataa intii oran lahaa warbal wixii ku haray waqtiga kan meeshaan isaga sii dhumayso aad iyo aad bay nasiib darradu tahay haba haddii arrintu ay ku soo maaragtay ku soo foorsatay calaa kulli xaal soomaaliya dib u heshiisiin waa u baahan tahay laakiin dib u heshiisiin ma dhammaato waana in ay dib u heshiisiinta meel kasta iyo labadii wada socotaaba labadii heshiisiin karta in heshiisiso heshiisiintuna waxay ku timaadaa labada qof oo la heshiisiinayo haddii midkood samro waxbaa ka hagaaga haddii midna samri waayana waxba kama hagaagaan waa waxa halkaan la gaarsiiye weeyaan waxa kale oo hadda waqtigan la maraayo raggii hore aad uga hadlay waxaa ugu horreeya matalan dastuurka oo kale 20 sano oo lasoo dhaafay dastuur baa la samaynayay labadii biloodba mar baa nibaasha la tagaa mar nairobi baa la tagaa mar meel kalaa la tagaa hataa xamar kuma ansaxo weligii shir dastuurka looga hadlayo xamar laguma qabo waxaan la yaabay mar walba meesha ugu sokayso oo lagu qabsaa waa nairobi then nibaasha kasumu halkaas u sii socdaa wax la yaab loo waayo markaa dastuurkaas anuu qola dhammayn doonta anu garan maayo una malayn maayo oo dhammaanayo sida soo socota oon u jeedo ma dhammaanayo marka jeer inta loo yaro soomaaliya war 10 qodoboo differenska u dhaxeeya kii 60 iyo midkaan bal eega intaa kaliya u baahan yahay wuxuusan u baahnayn mid Switzerland wuxuusan u baahnayn mid Jarmala wuxuusan u baahnayn okay adduunka federalism waa soo kordhay wax kale meesha ma soo kordhay see laga yeelaa federalismka inta uu u baahan yahay wax weyn oo tiro badan iyo baarlamaanka cadadiisa wax la mid ah wuxuu isku khilaafsan yahay aad buu yiriin dastuur oo dhan waa sida 12 qodob baa qaasa inta kale adduunka oo dhan waa arar iyo wax isku mid ah diinta iyo nationalismka waxa weeyaan marka aan waxaan oran lahaa dastuurka loo duceeyo soo aruuro waxa ku xiga oo hadda maanta ay taanaga dibka ugu weyn haysta waa amniga amni shalay oo waqti ugu dambeysay saaka la soo wacay qalbuur iyo meesha la yiraahdo matabaan dhexdooda waxa laga watay 6 iyo 2 oday waxa la aaday qalbuur وحقين العالبور بيادين ما ورا شباب كوكرتي وعالبور بيلتقي ما لايين ما وحكا لي كربان اما والله يان اما waxaan rabna sameeyay markaas anaga fidna la soo galay hadda meel kastana waa saas ma anaga kaliya meel walba saas waa laga hadlay anaga waxaan statistics waan sameynay ilaa 10,000 oo ciidana oo hubaysan oo indhii sawirkoodii iyo indhahoodii iyo teleefoonadoodii aan monitor galeen oo hayna oo database u sameeyay 10,000 oo ciidana oo hub rabin laakiin raba ammunition iyo logistically iyo mushaar dilo herka inta anagu haysana ayaa odayaasheeda shacabkeegii shabaabka inta uga soo xoogo waxaasna waxa u sababa hadda male awood ma hayno logistic male shidaal male gaadiid male dawladda federaalka haddaan u sheegnana meesha laga hadlayo inay Venezuela tahay iyo galmudug tahay kala yaqaaniin waa isku mid waxa soo weeraray hidaastay SS laga sheegay Suuriyiin iyo inay tahay balad mid ku yimid ilaa way ka tahay inay war waxaan kan nasiibkana saar bay hayaan maalinba midkaan kasee looga takhalusaa kan cayri kan keen yaa inoo haray dowlad goboleedyadii warkee ugu sahlan kee u hormarinaa kee u dabamarinaa wasiiradii waa la mid taliyaasha ciidamadu waa la mid waxa yani ayagii gudahoodii intoodii gruubka ay daawada isaga daray oo midba maalin la siibaya iska wadaa annagaan xoogaa ka fogfogo tuulooyinka joognay marka annagaabana la qaataay inaan hadda ka gabanno oo usiisiyaalla moohay oo aanu loo soo socdaa cadaaladda shalay 60kii wuxuu qorayaa
qofka qabanaya high courtiga markuu ugu yaraado 18 sannadood waa inuu maxkamad ka shaqeeyo 18 sano ugu yaraan inuu maxkamad ka soo shaqeeyo markay ugu yar tahay maxkamadda uu ka soo shaqeeyay midda haddaysan high courtiga ahayn waa inay tan rafaan ka tahay ay ka mid tahay 18 sano okay yaa doorta guddi baa doorta 9 qof ah oo iska doorta markii la magacaabo guddigaada garsoorka leeyahay anu waxaan oran lahaa oo hadda qoladeedan maaragtay dowlad goboleedyada warar hal inta magacaabano 4 ku darsadaan dhahan oo aan bilowna annagu si maaragtay aan u helo wax la yiraahdo almeel dadku ummaddu noo aragto inaan annagu wax keennay haddii kale barraal la magacaabaya cimrigiis waa 35 jir waa inuu ka weynaan shuruudaha waa inuu weliga maxkamad ka soo shaqeyn sharciga waa saas jira halkii ay ka 18 sano soo shaqeeyo waxa weeye waa inuu weliga shaqeyn waa inuu cimrigiis 40 gaarin oo mashaakil baan haysta marka anugu inaan bilowna annagu oo dib intay isugu laabano hal magacaabo عندنا ورافر كدر صدا هو أصلا غنى يقول لي هذا القصور قالك أنا أساسا يلاتها كوبر فانتاين وقتي وعقباب أفرتي سنة لا بحرتي لبدي الربعين إلا شيء وين مات لبدي سنة من الإلكشن الدياري من نوعها لو رفينا دي ودن بيسوي حرتي مركز la dooranayay xildhibaanada iyo senatarada warqadii lagu dooranayay waxa ku qornaa 2 sano ka bacd qof kasta waa inuu xisbi ku jiraa azaabtii meeytalo way man doonaan xaliima soo wada nooca yihiin sida la isku dooranay wali ma ogin 2 sano hartay waxaan ugu soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed hadday leedahay xildhibaano hadday leedahay senataro hadday leedahay aqoonyahan hadday leedahay cid kastoo wax garata 2 sano oo hartay dalka la badbaadiyo hal la isugu tago hal la qaylo dhaamiyo hal la isugu yimaado war xagee wax ku wadaan hal la yiraahdo dalka hal la badbaadiyo 2 sano waxa kaloo ka sii daran dalka Soomaaliya asxaabu iska lahaa wuxuun ay ka dhaxayaan dawladaha adduunka Canada oo intay noo jirtaan aragtay Soomaaliya ku noosha oo in badan oo ku noolay meelahan hadda joogto maalin dhaweyd gabar Sacuudiga wax la yeelay daraadeed baan calaaqaadkeeda khatar u galay bal waxaan ka rabnaa waxaan dhexgeliyay imaaraadkii waad ogeydeen oo aan بورش كيسة جرني وصابونتا وهركي صار ماشي سي مرايا وقال هذا أيها هذا كفي سنة إنقذ من الصومالي شوكا أنت أزلوا يدكتورين هاي كفي سنة سا إنقذ من السي شوكا الصومالي وأدوكتينو من نلتشوتي هذا دولة الصومالي haddaan marka dawladihii yar aan xoogaa asxaabta laahayn la waayay haddaan dhexdeena isweynay haddii 2 sano ku dhamaatay ka nasiibka nasaar anugu ma garan karo meesha aan hadda u socono saa daraadeed anu waxaan soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed ay ganacsatada yihiin hadday maaragtay aqoonyahan leeyihiin hadday xildhibaano iyo senatarro leeyihiin beesha caalamka wixii la fahamsiin karo dalka hal la daba qabto dalka waa socdaa waxaan ku soo gunaanayaa hadalkayga khayr Allah siiyo reer Puntland reer Jubbaland baan leeyahay adinkana wadiin duceeyo waa loo wada shaqaay ya shirkaan fiican aad noo qabateen waana noo sii qaban doontaan waana sii wadaynaa wax wanaagsan in naga soo baxaan baan ilaahay ka rajaynaynaa intii naan fadhiday inta kale talana siiyo noo soo duceeyo assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh haddana waxaan kelmad siinayaa wakiilka xogayaha